الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأمد كميدة الدروس تاني أنو كغور رميني كنا براروجينيني سيرها كدوغان بشن رمضان يا مقاصدي وجهدوين كصوم كلو شرعيي يا waxa ay tahay qofka muslimka ah inuu ka barto wa ramadaan wa akhlaaq almuslim wa ramadaan iyo dhaqanka qofka muslimka ah shay kuma jiro bisha ramadaan inay tahay madrasa li tahdhib an-nufus wa tarbiyatiha ilaahay subhanahu wa ta'ala meel ugu talagalay nafaha in lagu hufo waxa laaliyo wixii aan akhlaaq wanaagsan ahayn laga nadiifiyo isla markaana lagu tarbiyadeeyo akhlaaqda iyo dhaqamada fiican. waxa uu weynaa ilaahay subhanahu wa ta'ala bisha ramadaan uu waajibiyay waa soomka. soomku qayb weyn buu ka yahay qofka akhlaaqdiisa iyo habdhaqankiisu inuu hagaago, waayo akhlaaqaha xun ee caradu ay kamid tahay oo kamida usuusha akhlaaqda xun iyo ilaahay ka soo maaxdo waxa dhiirigeliya waa shaydaanka. ولهذا رسولك عليه الصلاة والسلام وحينا أمري qofku markuu cadhoodo inuu shaydaanka iska naaro oo arintaasina wuxuu tilmaamay sabab noqonayso in cadhadu qofka ay ka baahiso oo qofka waxaan markaa dhiigiisa kicinaya ka sii xanaajinaya xudheynaya waa shaydaanka. soomkuna shaydaanku suu rasuulku sheegay yajri min ibni aadam majra dam, marinida dhiigga iyo qofka bani aadamka ka maraa oo waa noole iyo makhluuq ilaahay subxaanahu wa tacaala u fududeeyey tashakulka iyo isqaabaynta iyo inuu marba isu yeelo suuro nooca, mar uu tacaadumu weynaado is-afuufo iyo mar uu yaraado, intaba xaaladihiisa ayay ka mid tahay. markaa soomku wuxuu ku cidhiidhayaa shaydaanka marinada noocaasiya ee uu marayo. waxaa laynoo tilmaamay oo laynooga dhex muujiyey ramadaan iyo soomka ramadaanba akhlaaqda iyo dhaqamada wanaagsan, iyadoo layna barayo inaynu ku sifowno dhaqanadaasi fiican laynagula dhiirigelinayo. waxaa ka mid ah dhaqamada wanaagsan ee soomka ramadaan uu inoo xambaarsan yahay, inoo siido dhaqanka sabirka la yidhaahdo. rasuulku calayhi salaatu wasalaam bisha ramadaan wuxuu ku magacaabay shahru sabri buu ku magacaabay. waa bishii qofka muslimkaa sabirka lagu baraya ahayd inuu sabirka uu ka barto. sabirkuna suu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa khayr oo dhan, waa diintii oo dhan. oo qofka sabirka mafhuumkiisa iyo macnihiisa ballaaran marka loo eego ku sifooba qof khayr oo dhan ku sifoobay, wixii u weynaaye u qiimaha badnaana ilaahay siiyey buu noqonaya. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi: maa ucطiya axadun cataa'an khayran wa awsaca min asabr. qofna lama siin wax qof la siiyo oo ka nafci badan kana ballaadhan sabirka. oo sabirka bisha ramadaan ina baraysa waxaa soo gelaya asabru cala ataaca, qofku cibaadadii inuu ku sabro oo nafta uu ku dul xidho. waa kaa qofku soomka gaajada iyo haraadka iyo daalka iyo tacabka wata maalmaha badan iyo saacadaha dhaadheer oo kaa ku sabraya qofka muslimka ah. haddaanu sabirkaasi jiri lahayna qofku soomka wuu jebin lahaa ama marka horeba soom ma bilaabeen oo arrinta noocaasiya kuma sifoobeen. saasoo kale cibaadaadkii kale farallada ahaa sidii hore ka badan oo ka xeel dheer buu qofka muslimka u ilaalinaya oo ugu sabrayaa, sida salaadii faralka oo kale. cibaadaad sunno ah oo laga yaabo markii hore inaanu samayn jirin ayuu ku sabrayaa. joogtaynta goobaha khayrka masaajidu ay ka mid yihiin ayuu qofka muslimka ahi saasoo kale ku sabraya. waxaa saasoo kale qofka muslimka uu ka sabraya xaaraanta, oo wixii soomka burinayay maalinka ramadaan oo dhan waa xaaraan. qofka muslimka xaqiiqada soomka fahmaa saasoo kale waxyaabaha macaasida ee ilaahay aanu ogolayn ee xubnuhu ay sameeyaan, indhaha iyo afka iyo dhagaha iyo gacmaha iyo lugaha iyo qalbigu, ayuu ka sabrayaa, naftiisa uu ka celinayaa, oo xakamo adag uu kaga xidhaya. macaasida buu iska ilaalinaya qofka muslimka ahi maalmaha ramadaan, waanu taxafudaya, wuu is ilaalinaya, isdhowris
aanu markii hore lahayn ama sidii hore ka badan buu yeelanaya inuu qofku gaajooday iyo inuu haraaday iyo waxyaabo ilaahay qadaray weeye laakiin waa aqdaro nafta aan mulaayim u ahayn oo nafta aan ka farxinayn oo muraadkeeda waafaqsanayn iyo sida ay doonayso oo nafta xanuujinaya kuwaan uu sabraya qofka muslimka idan sabirka noocyadiisii oo dhan ayaa ku jira bisha ramadaan akhlaaqiyaadka qofka muslimka ay barayso waxa kamida akhlaaqda dulqaadka وكان رسولك عليه الصلاة والسلام فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم أخلاق ذا عرق قرنتها إن قفك عرض ويسكو عليه وعرض وحا يفري سواء فلين سلامر كان الصفة حلمي قال هذا صفة دلقاتك إنه كسفوه وفإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم وأرين موتين يساقفك دلقات والسمي qofkii la dagaalamay isagoo iska celin kara kii caayay isagoo u jawaabi kara isagoo dulqaad ku sifoobay waxa ay noqonaysaa jawaabtiisu war waan soomanahay yaana soomkuna akhlaaqda wanaagsan ayuu ifarayaa akhlaaqdaada iyo dhaqankaaga oo kale oo cayda iyo dagaal maalin rabadaan la sameeyana soomku wuu ii diidayaa macnaheedu waa sidaas akhlaaqaha wanaagsan bisha ramadaan ay tahay dadka muslimiinta inay ka bartaan lagu barayo waxa kamida khuluq ar-rahmati bil khalq inuu adoonku noqdo mid khalqiga u naxariista oo qofku marka uu gaajoodo ee uu haraado wuxuu dareemayaa waxa ay dareemayaan dadka taasi ay mar walba xaaladooda ay tahay ee joogta ay u tahay ama noloshooda ay ku badan tahay wadada adigu saacadaha gaajootay dad baa sanado dhan gaajoonaya taasina waxay ku dhalinaysaa inuu khalqiga u naxariisto oo qofka muslimka ah la dareen noqdo akhlaaqaha wanaagsan waxa kamid ah qofka ramadaan qofka muslimka bisha ramadaan ay barayso khuluqul juud qofku deeqsi buu noqonayaa wuxuu noqonayaa qof markaa ku deeqa nicamka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey isagoo ilaahay ugu dhowaanaya khalqiga ilaahayna nicmada ku anfacaya nicmada lafteedana ku ilaashanaya sida rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaahay addoommuu xoola siiyaa si ay dadka ugu anfacaan hadday ku anfaci waayaanna ilaahay wuu ka wareejiyaa waayo ujeeddadii ilaahay xoolaha u siiyey ayay ku fulin waayeen nebi maxamed calayhi salatu wasalaam mar walba deeqsi buu ahaa cibaadaadka deeqsi buu ku ahaa dadka waxtarkooda iyo anficitaankoodana deeqsi buu ku ahaa kaana rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam ajwad annaas dadka kau deeqsan buu ahaa kaana ajwad maa yakuun fii ramadaan deeqsinimadiisuna halka u sarreysa waxay gaari jirtay bisha ramadaan saameyn gaara ay rasuulka ku yeelan jirtay oo sifaadkii wanaagsanaa ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu lahaa way sii kordhi jireen oo way ziyaadi jireen dadka muslimiinta markaa sifadaasaa laga rabaa inay yeeshaan gaar ahaan inagoo ku nool wadan faqriga iyo baahidu ay ku badan tahay waa in dadka muslimiintii nafqaybsi ay lahaadaan xoolaha ilaahay uu siiyey aanay akownada iyo khasnadaha iyo iska tuulaan berri baa laga dhimanaya iyagoo sidoodaasa laga yaabaa qofku inuu ka tago walaqad ji'tumuuna furaada kamaa khalaqnaakum awala mara wataraktum maa khawalnaakum waraa duhuurikum uri ilahi subxana watacaala sidii laydinku abuuray idinku aabaad ilaahay hor timaadeen wixii aanu idin siinayna xagga dambaad kaga timaadeen marka si aanay taasi u dhicin waa tacab khasaar qofka xooluhu ku daalun waxba kama faa'iidin waa in qofka muslimka fursadan bisha ramadaan uu kaga faa'iidaysto sakada faralka oo qura mid bixiya waa inaanu noqon ee sadaqada sunnahana waa inuu ku dadaalo isagoo rasuulku tilmaamaya ramadaan in laga barto deeqsinimada iyo dad waxsiinta wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka qof sooman afursiiya kaa soomanay ajarkii soomkiisa uu ka helay mid leeg baa kii afursiiyena uu helayaa iyadoo oo kii soomanaana aan waxba laga nuqsaamin hada fadlu llahi subxana wa tacaala wa fadlu llahi waasicun waa fadliga ilaahayna saas ayuu u ballaaran yahay guud ahaan ramadaan waa bil aynu ka baranayno ina baraysa ahna miday waajib tahay inay nagu tallaasho akhlaaq kasta oo wanaagsan dabci kastoo xun oo qofka hore u lahaana waa inay bisha ramadaan ay dawo uga noqoto oo inuu ka guuro oo ka diga rogto ay sabab ugu noqoto
أسأل الله أن يوفقنا لذلك وأن يغفر لنا كل ذنب. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.